xulka qaranka daayirta ayaa booqday garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsanaayeen booqashadooda maadaama ay nasiib u yeelan doonaan mustaqbalka dhow inay ku dheelaan Stadium Muqdisho waxaana tegitaankii kormeeridda qaybaha kala duwan ee ku soo mareen ciyaartooyda daayirta Soomaaliya inooga warbixiyay tababaraha xulka qaranka Soomaaliya Cabdilxamiid Macalin Maxamed aad iyo aad ayuu farxay waana mid run ahaantii aad iyo aad motivation u gelinayso sababtoo ah shalay ma aysan haysan garoon dhahan garoonkan waa garoonkeeni oo home stadium keeni oo kooxaha maanta yani ay la ciyaarayaan dhihi karaan maanta home game aan leenahay oo dalkeeni aan ugu imaanaya ama garoonkeeni iyo ummadeeni aan ku dhex ciyaarayna marka kullaytaba arintaas waa arin aad iyo aad u dhiirigelinaysa ayakana oo maanta mid walba wuxuu ku tashanayaa berito يعني كمد أهاو حلقة قرنك جرام كاسكو عيار الهاي مركب موتيفيشن كاسنا وحين نجا عاونة سا أنا كنا إن عيارتوي ده إكسترا إنرجي سيسو مركب هدو إلهي رهدو وأنا استعمالنا إنرجي جاس سي أن هدو إلهي رهدو أصوب بندقنو لأن يرسو مالية قرنك سومالي كو عياريسو وتاجريال سومالي كو عياريسو جرام كودي أيك كو عياريان هدو إلهي رهدو فلنقياش عيارها جذاها كلا عبد الله فارح الزكريا أحمد ayaa sheegay in dhalinyaradan ay yihiin horumarka kubadda cagta Soomaaliya lana sugayo sanadaha soo aadan inay ku dheelaan gigida Stadium Muqdisho oo lagu sameeyay isbedel wanaagsan tani markii ay ka baxeen ciidamada Amazon waxaan mar walba aad u soo dhaweynaynaa ciyaartooyda da'da yar ee generationka qaranka soo baxayso sababtoo ah waa meesha kaliya hadda calanka Soomaaliya meelaha ugu muhiimsan uu tagay heer final ilaa ay maaragtay kulamada qaar ay soo ciyaareen runtii waa message aad u fiican waana Janis aad u weyn marka aad fiirisid generation keerka dalka soo baxayo in Janis ay u helaan garoonkii oo maanta la dayactirayna runtii waxaan u maleynaa inay aad u nasiib badan yihiin ay ka nasiib badan yihiin dhalinyaro badan oo maaragtay waqtigii burburka aan nasiib u yeelan in waqtigoodii ay matalaan ama ay ka soo muuqdaan garoonkaas badan waay oo maanta 16 jir ama 15 jir xul qaran Soomaaliya xariisan in tuulada ugu weyn madacad Soomaaliya aan nasiib u yeelin inay ku soo aadiyada dhisay oo ama dhismeed u socdo macna heer gabagoono maray marka way qurux badan tahay in ciyaartooyda daayirta qaranka hadda taan xariisan qaran national oo aan leenahay anaga wada almiitay ayaa ka jiro marka way fiican tahay ay laftooda hamin fiican iyo farxad iyo emotional fiican u tahay dareenkooda xataa uu ku sarkacay qaar ka mid ah xiligaha xulka qaranka daayirta oo inoo waramay ayaa inoo sheegay in garoomadii ay sanadkii hore ku dheeleen ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika iyo Stadium Muqdisho inuu u dhaxeeyo farqi weyn tanina ay fursad u noqon doonto mustaqbalka dhow maadaama ay ku ciyaarayaan gurigooda farxad aad u weyn u dareemeen maadaama ay home yeesheen qof walbana homekiisu ku adag yahay marka waxaan rajaynaynaa homekeena inaan ku dheelno oo guulo badan oo gaari doono insha Allah garoon aad u weyn waaye oo xulka qaranka Soomaaliya iska leh marka xulka qaranka Soomaaliya inay ku dheelaan waxa ugu jeedinaa guulo weyn inaan gaarno rajaynaa insha Allah dhalinyaro badan arkay qaasatan commenti markii Facebook-da baraha bulshada la dhigo sawirada ciyaalka markay tagayeen dhanka media waxaan arkay comments badan dhalinyarada ay soo dhiibeen garoonkaas aad biliciisa tournament ugu dambeeyay ciyaartooyda ay ka qayb galeen under 50da and 15 Sikafa waxaan tagnay Asmara caasimada Eritrea waxaan ka qayb galnay tartan Sikafa under 15 waxaan ku dheelnay garoon waxaan ku ciyaareen competition dhan hal garoomada aan ku ciyaareenay garoonka maanta Stadium Muqdisho markii la barbar dhignay waxa kaliya dheeriya waxa waaye security-ga wax walba tan waxa waa dib ay ka soo hagaagayaan marka insha Allah garoomadaas garooma ka bilic badan ka qurux badan ka weyn ayaa hadda helina waana aad aan ugu faraxsanahay aad iyo aad ugu faraxsanahay garoonka Stadium Muqdisho soo weyn yahay isoo qurux badan yahay tournament-ka sanadka hore litriida waddanka caasimada Asmara garoonka ku soo dheelay kan laba kala yihiin nala isku dhigo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay garoonka anaga furan doono insha Allah Cabdilxamiid Macalin Maxamed oo bishii Febraayo 2020 loo magacaabay macalinka xulka qaranka daayirta Soomaaliya ayaa Stadium Muqdisho ku tilmaamay garoomada ugu waaweyn ee caalamka sida kuwa ku yaala waqooyiga Ameerika iyo wadamada Yurub garoonkan yani garoon Afrika ku yaalo quality-giisa wuxuu ka dhigan yahay quality-ska garoonada Yurub iyo Mareykanka iyo aan ku soo arkay sababtoo ah garoon yani caalami ah waaye garoon qalab walbo oo garoomada caalamiga ah maanta haystaan laga helayo waaye marka run ahaantii yani garoomada qaar waa arko dhulka Afrika lagu ciyaaro ku soo ciyaaray qaarkood ciyaaro waa ku daawaday quality-giisa markii la fiiriyo garoonka Stadium Muqdisho waa garoon la dhigma quality-ska kuwa Yurub iyo Afrika sababtoo ah garoomada turfka badanaa waa aragtay Afrika ma lahan
sprinkler system oo waraabiya ciyaartooyda garoonka u qooya garoonkeena waa leeyahay marka waa garoon marka la fiiriyo quality-giisa garoon caalami ah. talaabadan falanqeeyaasha ciyaaraha waxay u arkaan mid horumar ah maadaama Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay ee kobac fiican ka sameysay ciyaaraha qaaradda Afrika. Maxamed Xuseen Khaliile, Stadium Muqdisho.